habeen hore anigoo YouTube-ka ku jira waxaan arkay Cabdi Askari TV muuqaal soo dhigay oo 10 kaalmood ku kala siiyay heesihii fanaaniintu ay qaadeen sanadkii 22 kabacdi waxa ila muuqatay inuu khaladaad badan sameeyay oo fanaaniin badan dulmiyay bal aniguna aragtidayda waxa idin la wadaagayaa 10kii heesood ee ugu saameynta badnaa 22 Welcome to Edsaki Fish. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك كحولن سكي فيش أد بانو فرحسنا يا أصحابي إنه ندي بسوق صار نقولنا هدي أذكر عصبتين كنال كان وحنيد كله وذاك وحياة بدل مرة ومرتاح كنا نقولنا سود وهذا كنالك وكنال كيني نو سبسكرايب كريه سيدو كلا أصحابتين اللي سي وذاك سيدا تايتل كسو عرقتين أما هرد عباد كسو عرقتين وحاو مقال كني دارين يهي طوانكي هي سودة وقص همين تبدنا 2022 بالمركا وحا إنه سليه جدونا مركا وهو رئيس عبد عسكري تيوب سيدا وكلاس الرئيسيي أما وكلاسيي كالمها iyo sida ay aniga ila tahay idinkuna sidoo kale waxaan idin sheegayaa inaad aragtidiina ka soo dhiiban doontaan haddii aad aniga igu raacsantiin haddii aad Cabdi Askari Tube ku raacsantiin iyo sidoo kale haddii aad wax ka duwan haysaanba bal marka ugu horeysa waxaynu isla eegi doonaa Cabdi Askari Tube sida uu isagu u kala sarreysiyay haddii aanu ku bilowno numberka 10aad inagoo hoos u degayno ee qarayari iyo heesteeda totally aniga ila ma aha heestaas inay kaalinta 10aad soo gali karayso heestan waxa daawaday 2.5 milyan 7 bilood gudahood ila ma aha in heestaas uu qalan haye aynu isla eegno heesta ku xigta number 9 najma nashaad iyo heeska magarba xermiyaay wanaaga la xooro maxadba inta cayl xabaalo heestan ila ma aha in kaalinta gali karto heestan waxay haysataa 3.9 milyan almost 4 milyan bay haysataa 6 bilood gudahood marka sida ila tahay waxa jira heesa ka mudan oo aan gadaal idin kala wadaagi doono aragtidayda heesta saddexaad aynu eegno heeska iska eeg wadada ee Xariir Axmed oo booska sideedaad gashay imisaan kulaha adunkeena adigoo kaliya ku abuuran imisaan kulaha inigaada lama keenin ifoo lama uumin waayahay heestaasi waxa ay ku jirtaa booska sideedaad aragtida Cabdi Askari Tube waxaana daawaday 4 milyan 7 bilood gudahood ila ma aha aniga gadaal baan idin ka sheegi doonaa aynu ku socono haboon nuura sida ku jeclahay waayahay heestan haboon nuura iyaduna waxay ku jirtaa kaalinta 7aad waxa daawaday 7.6 milyan 7 bilood gudahood waa hees macquul ah laakiin kaalintaas bal kaalinta 7aad aniguna hadhow kaalinta aan geliyo dib baan idinka sheegi doonaa kaalinta 6aadna cidda ku jirta maxamed maame halkaad iga maagtay maangaran kalaan isku maranay maadaragi tada ka maarmay maadoran halkaad iga maagtay maangaran halkaad iga maagtay maangaran ya salaam heestani anigu shakhsiyan sidan qabo uma qalanto kaalintaas waxaan aaminsanahay inay ka sarreyso gadaal baan idin kala wadaagi doonaa heestan waxa daawaday 2.8 milyan hal bil gudaheed 2.8 milyan ayaa hal bil gudaheed ay ku daawadeen marka aynu ku socono kaalinta shanaad waxay ciriirsatay heesta iga dhowr cidlada heestaas waxay haysataa 3.5 milyan 7 bilood gudahood bay 3.5 milyan ku haysataa waxaan ila tahay aniga heestaasi top 10ka uma qalanto labada fanaanba runtii aad bay u shidnaayeen sanadkan laakiin top 10ka aragtidayda ila maaha aynu ku socono kaalinta afraad heesta ku jirta istamaada ee ay isla kala wareejinayaan ayaa kaalinta afraad durdura ku gashay xidigta caashaqa shidaymana iskayga midii hantidaymana xidiga caashaqa shidaymana iskayga midkii hantidaymana heesta ay wada qaadayaan Cabdiraxmaan Nasri iyo Ayaana iyaduna waxay haysataa 3.9 milyan bay haysataa 5 bilood gudahood runtii heestan waa hees aad u macaan laakiin heeso badan oo ka views badan baa jira laakiin waan aaminsanahay inay top 10ka geli karto gadaal baan idinka sheegi doonaa aynu ku sii soconno heesta kaalinta saddexaad ugu jirta Cabdi Askari amarkii la intidayo abasal bar ku jagacsiin heestan ay baad aragtan qaaday 2 bilood gudahood waxa ku daawaday 1.6 milyan marka Cabdi Askari Tube waxay ugu jirtaa kaalinta saddexaad bal aynu ku sii socono heeska kaalinta labaad xoogga kula wareegtay qurux meel istaato murana ugu furay marx
markhaatiga madaldad kuba ina tahay mulaaxi tahay tahay ina tahay mulaax yahay waa mubaax dadka oo kasi magaca weyn oo nagaliyo oo amaran noloshu marmi kara ina tahay makhluuqaba tahay ina tahay makhluuqaba mataqin يا سلام هستان ay wada qaadayaan Mursal Muuse iyo Habboon Nuura waxa ay haysataa 7.1 milyan 3 bilood gudahood heestan kaalinta labaad bay ku jirtaa aragtidaydana waa sax heestan kaalinta labaad way geli kartaa aynu ku sii soconno heesta kaalinta koobaad gashay tanna waxaan soo gaadhnay gabagabadii iyo heesta muruqa ku qabsatay kaalinta koobaad ee heesaha sanadka 2022 waa heesta ma awoodo inaan ka ahaado xariir axmed iyo raxmo xasan sanad wacano wanaagsan nala soo wacano wanaagsan ereyadan ka maqlaayo afkaaga niyada istareex ku ahaatay qotalkiyo unta waxa iga gooya adigoo indhahayga u muuqan waa hagaag heesta kaalinta koobaad gashayna waa heesta xariir axmed iyo raxmo xasan ay wada qaadayaan 10 milyan bay gaadhay heestaasi imsa bilood gudahood 4 bilood gudahood bay 10 milyan ku gaadhay okay haddaba waxaan idinla wadaagi doonaa aniguna aragtidayda markaa heesta kaalinta tobnaad gashay ayaan idinla wadaagi doonaa xidigta caashaqa shidaymada iskayga midii hantidaymada xidiga caashaqa shidaymada iskayga midkii hantidaymada heestan ay wada qaadayaan Cabdiraxmaan Nasri iyo Ayaana runtii waa hees intaa in ka badan bay u qalantaa views ahaan laakiin muuji dadka la hadhay waana aaminsanaa heestan inay heesaha ugu sareeyo ku jirto anigu ahaan waxaan geliyay kaalinta tobnaad heestan waxa daawaday 3.9 milyan 4 milyan bay ku dhowdahay 5 bilood gudahood bal markaa iminkana waxaan isla eegi doonaa heesta kaalinta sagaalaad xaggayga ku jirta Saalax Sanaag waxa daawaday 8.8 milyan baa daawaday 9 bilood gudahood bay 8.8 milyan ku daawadeen marka anigu waxaan siiyay positionka sagaalaad sababtuna waxa weeye almost waxay u dhowdahay 9 bilood iyo 9 milyan marka anigu saasaan u siiyay kaalinta sagaalaad aynu isla eegno heesta kaalinta sideedaad gashay heesta ay wada qaadayaan Qamar Suugaani iyo Raxmo Xasan ayaa waxa aan geliyay kaalinta sideedaad ayaan geliyay heestan waxay haysataa 6.9 milyan bay haystaa 7 bilood gudahood bay inta ku haysataa marka yacni almost 7 bilood gudahood ay ku haysataa 7 milyan marka aniga ahaan heestan waxay ku jirtaa kaalinta sideedaad bal waxaynu isla eegi doonaa kaalinta toddobaad heesta ku jirta kusari tashka ashqa taageeradiisa naftaydu tahay naftida Raxmo Xasan heesteeda ayaa aniga igu jirta kaalinta toddobaad 4 bilood gudahood waxa ku daawaday 4 milyan iyo 600 oo kun oo qof waa hees runtii ay dadku aad uga heleen baan oran karaa waxaan ku sii soconnaa kaalinta lixaad inkastoon sirida oo ilow inkastoon adkaystoona musnaa inka badan intaa ma awoodi karo heesta Saalax Sanaag waxa daawaday 3.6 milyan hees waxa la yiraahdaa Urugo 2 bilood gudahood ayaa waxa ku daawaday 3.6 milyan sidaan ay ugu qalmin heestan inay kaalmaha hore markaa gasho marka heestan anigu waxaan geliyay kaalinta lixaad iminkana waxaan isla eegi doonaa heesta kaalinta shanaad aan geliyay sida ku jeclahay يا سلام heesta Habboon Nuura ayaan anigu geliyay kaalinta shanaad heesta waxa la yiraahdaa Saadaali guusheena waxa daawaday 7.6 milyan baa daawaday 7 bilood gudahood yacni waa dareemi karaysaan hees ciyaar maaha waayahay bal imkana waxaan isla eegi doonaa heesta kaalinta afraad gashay hagaag heesta ay wada qaadayaan Mubaarak October iyo Farxiyo Fiska hees iyaduna waxay ahayd aad u saameyn badan 6.9 milyan ayaa waxay ku daawatay 5 bilood gudahood waa dareemi karaysaan heesta sida ay dadku uga heleen yacni haddii la isku qiimeeyo viewska iyo bilaha waxaan aaminsanahay inay cadaalad ka noqonayso yacni helitaanka ay dadku ka heleen heesihii sanadka ayna soo dhaafay marka anigu labadaasaan isku saleeyay heesta kaalinta saddexaad gashay ayaynu iminkana isla eegi doonaa meeshaan kugu sugayay mada iman
hadasha madafalan milkaheedii naftayda madumarin waa hagaag heestan maxamed maame ayaa aniga igu jirta kaalinta saddexaad heestan waxaa daawaday 2.8 milyan baa waxa ay ku daawadeen hal bil gudaheed heestan sanadkan cusub ee soo socdana inta ay kordhin karayso waad dareemi karaysaan score waaliya u xidhnaa maalintii ugu horreysay intii daawatay marka heestanan waxaan odhan karaa kaalinta saddexaad bay ku jirtaa marka loo eego bisha keliya ay tahalay 3 milyan ee daawatay imika muuqaalkan intan duubay emoji inta ku biirtay marka bal waxaynu isla eegi doonaa kaalinta labaad cidda ku jirta niyir qaabday ruuxdo waad mulkida sida maalab codkaaguna imacaan anigay macaan heestani waa hees iyaduna runtii aanu ka simannahay cabdi askari tiyub waxaa daawaday 7.1 milyan baa daawaday 3 bilood gudahood waad dareemi karaysaan xawaaraha ay heestaasi ku dhaqaaqday marka aniga kaalinta labaad bay igu jirtaa sidoo kale kaalinta koobaadna of course heesta gelaysa waad iska sii garanaysaan waa heesta xariir axmed iyo raxmo xasan ay wada qaadayaan sidaaday dhowrta adduunka wanka waayay intaan soo arkay qalbigayga ilayska u daaran adiga halkumooyasay heestan way u qalantaa kaalinta koobaad waana heestii sanadka taa ciidi muranka ma keeni karto iyada iyo kaalinta labaad heesta ku jirta ay wada qaadayaan mursal muuse iyo haboon nuura heestan waxaa daawaday 10 milyan 4 bilood gudahood yacnigi xawaaraha ay ku dhaqaajisay waad arki karaysaan 6 milyan bay dheer tahay 4tii bilood haddii loo xisaabin lahaa inay halkii bilba ay 1 milyan samaysay 6 milyan ayay dheer tahay marka heestani iyadu muran geli mayso marka asxaabay aniga aragtidaydu waa taa idinkana bal waxaan idin weydiinayaa haddii ay jiraan heesaan ilduufay saacad ka hor ayaan aniguba isku toostoosiyey intan haddii ay jiraan heesaan ilduufay bal dhanka commentiga igula soo wadaaga biniaadan baan uga khaldami karaa aragtidaydun baan halkan ku cabirayaa bal sidoo kale dhanka commentiga igula soo wadaaga haddii ay idinla muuqato inaan saxanahay iyo haddii ay idinla muuqato inuu cabdi askari tiyub saxan yahay marka asxaabi waxaan rajaynayaa muuqaalkii maanta inaad ka hesheen haddii aad ku cusub tahay kanaalkan inoo subscribe garee sidoo kale inoo like garee haddii uu jiro qof asxaabtaada oo aad jeclaan lahayd inuu barnaamijkan isaguna aragtidiisa ka dhiibto fadlan la sheer garee inta aynu ku kulmayno muuqaalka xiga waxaan idinkaga tegayaa sanad cusub oo wanaagsan goobtuna isma dhaafto